بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan u mahadcelinayaa Madal TV runtii barnaamijkan caawa waxaan rabaa inaan uga hadlo dhowr qodob oo ka cusub arrimaha ICE arinta runtii dadka Soomaalida ee la celiyay kuwa ee la soo daayay saa ogtihiin waxaan rabaa inaan ka hadlo maxaa hadda ka cusub ICE saa ogtihiin ICE shantii week oo u dambeeyay 6dii week waxay operation ka waday gobolka Minnesota Soomaalida saan hore u sheegay la qabtay waxay ahayd ilaa 63 qof laakiin guud ahaan gobolka waxay ahayd 500 oo qof Soomaaliya waxa ka ahaa 63 dadkaasi runtii waxay isugu jireen dad kala duwan oo qaarkood ay lahaayeen withholding asylum qaarkood ay lahaayeen TPS qaarkood ay lahaayeen dad asylum oo maangeli sugay qaar badan oo kamidna waxa lagu qabtay runtii sharci darro dadkaas 7 qof oo kamid ah waxa amray xaakim maxkamadeed waxana lagu amray hay'adda Homeland Security ICE inay soo deyso dadkaas waa la soo daayay waxaan rabaa inaan ka hadlo saddex xabsi ayaa la geeyay oo gobolka Minnesota ku yaalay xabsi waxa la yiraahdaa xabsiga Wilmer ku yaala buu ahaa laba saaciib buu noo jira magaalada Minneapolis xabsiga kale waxa uu ahaa Shelby County waa Elk River xabsiga saddexaadna waxa uu ku yaala Alberta Lee waxa la Freeport runtii dadaalo badan ayaa la suubiyay dadkaas looyaro badan ayaa hawshoodii galay oo brevet ahaa iyo kuwa aan brevet ahaynba 7 qof oo la soo daayay ma jiraan dad Soomaaliya oo la qaaday intii u socday operationka ha 11kii bisha December 33 qof oo Soomaali ah oo laga soo aruuriyay gobolada dhan oo Mareykanka ah ayaa la qaaday waxa laga dajiyay magaalada Muqdisho dadkaas waxay isugu jireen dad horey loo amray in wadankan ay ka baxaan oo sharciga loo diido asylum laha iyo qaar markooda hore wadankan ku yimi si sharciya ka hor intayna qaadan baasaboorka weyn ama dhalashada dalkan oo galay dambiyo oo wadanka joogay oo laakiin xaakim uu amray dadkaas runtii waa mid diyaarad labaad ayaa jirtay oo la qaaday dhamaadkii bishan December 23keedii iyagana waxa laga dajiyay magaalada Muqdisho tiro waxa qiyaasaynaa number sax ma hayno laakiin saan qiyaasayno waa dad u dhaxeeya 22 ilaa 27 qof waxa laga dajiyay iyagana magaalada Muqdisho marka waxa la qaaday laba falayd oo Soomaaliya intii uu biladay operationka ICE sanadkan 2025 okay haddaba waxaan rabnaa inaan ka hadalno maxaa kale oo cusub okay waxa kale oo cusub horta waxaan ka hadlaynaa ICE yay u socotaa ICE yay xaq u leedahay inay qabato ICE waxay u socotaa oo qaban kartaa qof ay wadato maxkamadiisa xaakim soo ogolaaday qofka in loogu tago gurigiisa in gaarigiisa haddii uu maray dariiq la istaajiyo qofka la xiro okay haddii marka ICE ay ku timaado maxaa kula gudboon ICE haday ku timaado waxa kula gudboon sida soo socota horta marka ugu horeysa waxa leedahay hadii lagu yimaado gurigaaga goobtaada shaqada ama bawrkaaga waxa leedahay yaa gurigaaga garaacaya waa inaad hubiso qofka gurigaaga garaacaya markii lagu sheego cidda gurigaaga garaacaysa waxa leedahay su'aasha labaad yaad u socoteen oo aad raadinaysaa waa in la hubiyo qofka la raadinayo marka saddexaad waxa leedahay addresskan miyaad u socoteen su'aasha ugu dambeysana waxa waaye intaas oo dhan markay sax noqdaan ma haysataa waraaq maxkamadeed marka anagu waxaan ognahay asal legal teamka iyo dadka u doodaya communityga iyo lawyerada oo dhan waxaan ognahay ICE 98% ma haystaan waraaq maxkamadeed waxay haystaan waraaq iyagoo ay soo subsadeen oo Department of Homeland Security oo sabiina ah waraaqdaas qof ma lagu xiri karaa maya haddii marka uu wado waraaq maxkamadeed maxaa leedahay waxaa leedahay kaama furiyo gurigeyga waa kaamusaysaa okay marka waxaa dhacda in guriga lagu jabiyo hadday dhacdo force xoog inuu yimaado khasab marka lama hadlaysid remain silent waxaana ku ogol sharciga iyo qawaaniinta wadanka Mareykanka lama hadlaysid markii lagu kaxeeyo wixii horta ku gaara guriga damage-ka ama wixii dhaawac ku gaara mas'uuliyadda waxa qaadaysa cidda ku timi oo aysa markii xabsiga lagu geeyo waad ogtahay qofka waaladkiisa iyo waa laga reebayaa taleefankiisa waxaa muhiim ah oo community-ga aan kala hadlayaa in ay laba number xafidaan numberka koowaad waa numberka taleefanka qofka emergency-ga ku ah ama ha ahaada saaxiibka ama ha ahaada qaraabadaada qofka contactiga ku ah okay numberka labaadna waxa weeye waa numberka lawyerkaaga maxaa marka saas u leeyahay runtii waa cidii aan la xiriir lahayd markii dib ku gaaro okay haddii marka bilow aadan baa aad xafidi karin laba numberka lawyerkaaga xafid okay markii xabsiga lagu geeyo waxay wataan waraaq bay la soo bixi doonaan waxay ku leeyihiin waraaqda noo saxiix
ma saxiixaysaa maya waraaqdan ma saxiixaysid waraaq waxaa leedahay anugu ma hadlayo waraaq ma saxiixayo ilaa lawyerkayga aan helo without lawyer in lama hadlayo you remain silent okay sidaa markay dhacdo sharciga muxuu ogolaya qawaaniinta 48 hours ilaa 72 hour inuu lawyerkaaga kugu arko lawyerkaagu ballan buu dhiganayaa within 48 hours 72 hours wuu ku arkayaa okay lawyerkaaga marka uu ku arko asaga ayaad informationka siinaysaa iyo xogta okay markaas maxaa subisay xuquuqdaadii baad difaacatay wax xoga oo laga haya ma jiro okay waxaan kula talinayaa marka dadka oo aan aragnaa mararka qaarkood qofka daawanaya haddaan u sheegayaa waxaa muhiima qofku inuu alee nambarkiisa iyo uu reebo dhalashadiisa iyo magaciisa oo saddexan taas waxay noo fududaynaysaa hadhowto qofka marka la xiro oo aniga la isoo waco ama lawyer la waco la yidhaahdo hebel baa xiran su-aalaha aan weydiinayna waxaa waaye alee nambarka ma haysaa magaciisa oo saddexan ma haysaa dhalashadiisa ma haysaa intaa markaan helno qofka magaciisaan gelinaya trackinka department of homeland security-ga waxaan noo soo baxay ogaanaynaa qofka xabsiga uu ku xiran yahay laakiin haddaan informationka ahayn qofkii ma caawin karo waxaa laga yaabaa haddaan rabta inaa caawiyo xataa ay ku qaadato haddii xataa magaca dhalashada id waqti inay qaadato marka please qofku waa inuu saddexdaas qof uga tago qof qaraabadiisa okay aan u soo laabana our community-geena Somali community 97% waxaan nahay dad sharci leh wadankan waxaan nahay dad Soomaali Americana waxaan nahay qaarkood kuwa green card haysta qaarkood kuwa I-94 haysta dadkeenu 97% waa sharci tirada Soomaalida ee sharci la'aanta waxay isugu jiraan saddex group waa group TPS ah group waa group Mengelidoona oo jooga oo sharci la'aan oo dacwo sugaya in loo soo jawaabo oo maxkamad ay go'aan ka gaarto groupka saddexaadna waa group wadankan dambe ka galay muddo badan joogay sharciga laga qaatay tira intee awaaya waa tira ilaa 5,000 qof ah okay marka arinta hadda socota ma sharciya maya arinta ICE ay wado waa wax sharci darro ah 98% dadka ay qobanayaan waa dad wax ka baxsan sharcigii maxaa dhaca marka waxaan ka hadlayaa dadka meengelyada haysta ICE ma u tagi kartaa maya dadka daawanaya oo Soomaalida oo haysta oo sugaya dacwo in go'aan laga gaaro waa dad meengelidoona application ba u xareysan maxaa la siiyey waraaq shaqo waxaa la yiri inta laga gaarayo go'aan sharcigaaga waa inaad sugto jawaabtaada inta badan qofka sharcigiisa waxaa go'aan ka gaara maxkamad xaakim jooga ama waxaa arkaysaa asylum officer runtii waxaa muhiima badana hadda aad waxaa biisi waa immigrationka Mareykanka inkastoo aan shaqo badan soconba 10 gobol oo Mareykan hal xarun baa asylum office ah anaga hadda Chicago ku yaala officekeena laakiin 2014 baan waxaan aad dadaal badan u subinay qolooyinkeena mataqaanaa minority-ga iyo dadka soo galootiga in xafiis laga furo gobolka Minnesota waa ku guuleysanay xafiiskii 2022 baa waxaa la keenay muxuu ahaa ishag halkan marka hadda wuxuu furan yahay dhowr sano laakiin shaqo ma socota badan wali sidoo rabo ma shaqeeyo okay aanu soo laabana marka waxaa marka qofkaas ma la qoban karaa maya qofkaas waxaa la yiri war qof kaan wuxuu sugayaa sharci in go'aan laga gaaro ICE ma u tagi kartaa maya ma la xiri karaa maya ma la hadli karaa maya absolutely ICE waxa ugu tagi kartaa qof xaakim waraaqdiisa qoray wadankan la yiri hore uga bax go'aankiisa la gaaray okay waxaa jira dad kale oo la yiraahdo withholding asylum maxaa waad ka macnaha marka waa dad dambiye galay laakiin waxa la yiri dalkoodii dagaalo ayaa ka socda maadaama wadanka uu nabad ahayn waa inay joogaan sababtoo xaakim baa waa inay joogaan okay waxaan aragnaa oo hadda dhacday dad Soomaaliya inay aadan Canada oo waxaan aad uga xumahay 5 wiil ka hor sidaan dhowr jeer hore sheegay 22 baa ka booday xadka aaday 9 ka mid ah waxay gashay gudaha diyaarad ICE ay leedahay baa lagu mataqaanaa cayrsaday 12 waxaa loo qabtay gacanta midna wuxuu ku dhintay barafkii dadka hadda waa xiran yihiin okay maxay markaa subin dadkaas runtu waa bilaadan waa khaldameen laakiin wax sax ma subin sharci bay haysteen dareflisin bay haysteen way ka shaqaysanayeen cid xoog ku lahayd oo qasab ma jirin sabab ay u baxaan ma jirin hadda maxaa dhac marka waa in dadka hadda xabsiyada loogu tago lawyer loo qabto
kiiskooda dib loo furo asylumkooda koo loo soo bilaabo wayfer loo raadiyo waxaasoo dhan baa haddana sugaya annaga dadkaa liiskoodii waa hayaa dhowr qof oo ka mid a runtii familadoodii waa helay qaar kalena waxaan jeclaan lahaa familada daawanaya inay la soo xiriiraan 12 wiil oo lagu xiray xabsiga North West Correction oo ku yaala Instagram Focus marka dadkaas maxaa saa u leeyahay dad badan waxaa jira telefoonadii aan haysan familkooda qaraabadooda haysan laga yaabo in laga warqabin hadda marka biliis ay la soo xiriiraan okay waxaan kaloo rabaa marka inaan ka hadlo dad waxaa jira ballan aysan leh dadkaasi ballanta ays leh ma goyn karaan ballantii maya ma goyn karaan ina ballanta goysaa dambiya waxaa la yiraahdaa ice check officerka wuxuu qaabilsan yahay shaqadiisu ay tahay inuu ku weydiiyo wixii isbedel uu kugu yimi inaad adres ka guurtay inaad shaqo heshay inaad shaqayn information wixii kugu cusub okay ballantaada tag laakiin hal talo please lawyer u tag lawyer la tasho marka adeeso waana muhiim inuu ku raaco hadaa heli karto sababtoo ah waxaa laga yaabaa in ay kugu dhigaan ma kugu dhigi karaan ha laakiin waa maxay waa sharci darro haddii lagugu dhago waa sharci darro ma lagu dhigi karo haddaad taameen geli doon haddaan kuu sheegaya ma lagu dhigi karo haddii lagu dhigana waa lagu soo daynaya waxay qaadanaysaa waqti okay midda kale oo aan raba inaan ka hadlo waxa waaye shaqooyinka immigrationka waa la istaajiyey hadda annaga 2 bishii December waxaan suubinay lawsuit annaga iyo qolada ACWA xuquuqda u dooda lawyer immigrationka attorney generalkana in shaqadii la fasaxo qofkii green card sugayay qofkii aynana for sugayay qofkii dhaar sugayay wax walba oo shaqo socday waa la istaajiyey marka dacwadaasi waxay qaadan kartaa 60 days 7 days qaar waxaa jira dadka qaarkood ballama laha dhaar ah oo laga kansalay okay dad marka ballamaha leh oo dhaarta leh laba option baa leh hadday rabaan lawsuit baa loo subin karaa lawyer gaara subiya ballantooda waa loo soconaya haddii kalena waxba yeena kharash bixin ha sugaan dacwadan okay Somaliban xaaladiisa xagga maraysa Somaliban hore ayuu madaxweynahan ugu dhawaaqay laakiin ma dhaqan gelin wali January ayaan filaynaa inay dhaqan karaan saas oo ay tahay wuxuu u dhaqan galayaa si tartiib dadku hadda ma imaan karaan familadooda dalbaday ha way imaan karaan dadka ma laga yaabaa bank inuu sameeyo ha laakiin waxaan u sheegayaa ogaada hadda haddii uu jiro family Soomaaliya oo passport wato oo jooga Malaysia ama Qaahiro ama Kenya la say waa loo soo dejiyay fiisihii u baaday qofku wuxuu ku doonan karaa passport kale xaq miya ha أنا واحد يسكر كلا باسبور كنديانا مد مريكا مد كينياتي مد سوماليا لو باسبور صدق باسبور أكل دون بحيث كرتا أوكي مركا هدي بروسيس كده ما يسوي حلا ده أنيجا باسبور كان بحيث في زعل وسي ولا وسي نيا ملقوه قال لي هاي لباب باسبور ها تقدر أنا واحد ده أنيجا باسبور كان سوماليا هيستا مركا محوها ما عليه كاس ماي قف واحد يسكر على لباب باسبور حق بقوليه أنا واحد دي أنا تحان كوباسو أنا نروجو ماليزيا باسبور كان سوماليا ما دام بان أسرين هاي كيات هدان هيستو بعمل صباحيا هدان يتوبيان أنا باسبور هيستو أوكي تاو قال okay dadkii qaxootiga ah oo imaanay arintan waa dadka ay kaliya ay saameeyeen sababtoo ah dawladda Mareykanku baan bay saartay kuwaas dib u dejin baa la siiyay dawladda Mareykanka go'aan ka gaaraysa laakiin dadka qaraabada eheladooda iyagu way soo bixi karaan haddii xataa xiraadu ay timaado maar of time baadansa okay ugu dambayn community-ga runtii aan fahano annaga community-geena arinta socota siyaasad waaye xisbiga Republicaanka iyo madaxweyne Trump ma qarsan madaxweyne Trump dhowr jeer buu ka hadlay arinta Soomaalida waa ogtihiin annagu waxaan ahay dad Soomaali Mareykan dad waxaan ahay taxpayer military kamida police kamida madaxda Mareykanka kamida cidna handadi karta ma jirto no one above the law dadkeena lama handadi karo waxa socda waa u jeednaa waa racial profiling waa target community-ga sharciga Mareykankana ma ogola qolo in la single out gareeyo ama si gooniya loo fuuqo oo lala dagaalamo waa sharci darro waa ka dagaalamayna waxaan ognahay dad Mareykana oo citizen in dhibaato loo geystay waa documenti gareeyna dadkii loo geystay dhibka waa hayna magacyadoodii annaga sanadaradeena aan dooranay iyo madaxda hearing baan furaynaa ice dambiyada ay ka gashay Mareykanka oo dhan ma la isaga harayo no one above the law qofna kama weyna sharciga wadankan Mareykanka cid ka xigta ma jirto waa la wada yimi wadankan Trump awgiis baa yimi aniga Soomaali baan ahay awooyaashay oo simaanaaba waxay yimaadeen 1810kii equal opportunity waaye waa loo siman yahay cidna dadkeena ma xadgudbi karto waxa ku soo haray siyaasadda annaga waa ognahay sababta aan unahay targetka oo businesskeena loo weerarayo oo dadkeena loo weerarayo waa siyaasadda maxaa xisbiga dimuqraadiga ugu codaysan qofku waa xor codkeena meesha rabnaa aadayna danteenu meesha ay ku jirto annaga go'aan ka gaarayna cidna ma gaarayso go'aan dadkeena lagu xadgudbay waa difaacayna okay waxa ku soo haray ayaantan waxa socota dad rasiista ah oo kaamirooyin wata oo youtuber ah dadkaas waxaan uga digaynaa community-ga
بروبرتيga ay yimaadaan businesska ay yimaadaan ogaada idinka ayaa iska leh businesskiina markay yimaadaan بروبرتيgaaga بوليس wac banaanka u soo bax kaamara qaado duub inta booliisku uu ka imaanayo halkaas ku hay su'aalaha u jawaabin halla hadlin kaamarada qaado stay back there waa property transpass baa laga siinayaa si sharci darra ah sharciga cityga ordinaryga iyo stateka iyo federaalka ayaa ogol qofka private propertygiisa qofna ma iman karo hadda waa suubinay Abu Bakr Sidiq uu soo galay waa ka cayrinay transpass baa la siiyay meel kala duwan baa lagu tagay nimanka ololaha ku jira oo dadkeena raba inay handadaan oo rasiistaha oo cunsuriga oo anaguna sharciga Mareykanka qofna in lagu soo bikra harassment iyo cunsurnimo wadankan discrimination mamnuuc ay ka tahay absolutely hadda inay sheegnaa Soomaaliya halla hadalina dadka waliba luqadda yaqaana oo bisada iska leh qofka luqadda yaqaana ha soo baxo banaanka ku celiyo hoosna bulshada ka waco anaga qorsheena waxa waay 3 ko meedihi localka iyo meedihi anaga inaan keensano aan tusno dadkeenu inay ahayn dad musuqmaasuqa dadkeenu dad hard worker taxpayer shaqaysta fiican wax ku soo kordhiyay wadankan contribution fiican galiyay bulshada kamida waay qofkii asagu dambi gala asaga u taala hay'adaha leh baaranaya wadankan qofkii asagu ku xadgudba lacagta taxpayerka had cid ama ha hada cadaan ama ha hada madow midna waa in sheegay anaga meediyaha waan la dagaalamay community-geena qofka cadaanka markuu wax dhaco waxa la yiraahdaa Steve Johnson baa wax dhacay Mary Anderson baa dhacday why loo leeyahay Somali community why wa target wa racial profile meediyaha waa ka dagaalamayna dadkeenu isku imaanay community-geenu hadda uu fiican yahay Somali table leadership baa la subiyay dad Soomaali isla qaamay baa ku jira qayb baa anigu ka ahay community-geena waa difaacina halkan waxa uu mahad celinayaa dhammaan dadkii reer Minnesota oo cadaanka ahaa oo madowga ahaa oo colorka ahaa oo na garab istaagay xilligii adkaa maalin kasta aan wada shaqaynaynay barafka hortaagnayn dadka taariikhda qoraysa waa dariskeena waa dad bilow aadana waa isku baahanahay maalintu dhibka jiro in la caawiyo mana ilaawi doono dadkaasna runtii marka aragtaan soo dhaweeya kaxeeya la sheekaysta maqaayadaha cunto geeya la shaaheeya runtii dadka waa in loo mahad celiyo xilli adag bay naga saareen marka mar labaad iyo mar saddexaad community waxaan ugu digayaa please nimanka rasiistaha oo youtuberada oo ma taqaanaa isheeg wareegaya cunuga niiki aabihi iyo kuwa kale badan baa soo socda businesskaaga propertygaaga ma iman karaan waxaan runtii guulahayd inaan shalay keenay TV-yadii localka ahaa daykeerkii beenta ay ka sheegeen wiilkii cali oo si fiican u hadlay runtii uu sheegay meesha shaqo socoto sidaas baa runtii dadkeena u difaacayna youtuber waxaan u baahan inaan la shaqeeyo oo cadaana oo luqadda ingiriisiga ku hadla sababtoo message-kan waxa loo gudbinayo waa message dadka Mareykanka waay youtuber waxaan u baahan la shaqeyn loo liberaal waxaan u baahanahay media inaan keeno waa isdifaacayna dardaarka u dambeeya marka war Soomaaliyeed inta soo jeerna waayna Soomaaliyeed anigu 30 sano u dambeeyay in shaqeynay inta waxaan ku hayay war Soomaaliyeed aan tashano war wadanka aan ku noolaano war institution aan subsano wixii dhacay waa dhaceen baasti way kama hadlayno hadda iyo dan dadkeena Soomaalida waa inaan isku nimaano waliba dadka in leadka oo aakhir la weydiinayo umadan oo leadership-ka ah oo wax bartay community-gini time siiya talada fiican keena aan tashano aan isku nimaano waana qof walba mas'uuliyad saaran waay qof walba personal responsibility baa saaran aan isku nimaano xaalad adag baa lagu jira waa la socotaan maanta ilmahani opioid crisis gun violence waa la isdilaya dhinac waxaan uga furan ganacsigeeni baa la weeraray dhinac siyaasadii baan la ku haystaa maantay waxaan ku jirnaa the most difficult time baan wajahaynaa xilligii ugu adkaa xilliga ugu adagna maxaan ahay anagu Soomaali baan resilient baan dad adkaysi badan baan nahay waa ka gudbaynaa waa guuleysanaynaa waa difaacaynaa dadkeena annagana Mareykan baan nahay inna ma handadi karto guushan waxay ku dambeynaysaa qofkii dagaalama oo mustaqbalkiisa ka fikira waa maasantiin